السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا رونشيغ ميريا oo fadhigeedu yahay magaalada Edmonton gobolka Alberta dalka Canada waxaa maalintii Jimcaha ay ahayd Soomaaliya ka dhacay qarax lala beegtay basri ciyaartooy qaraxaas oo ka dhacay magaalada madaxda Jubbaland Kismaayo Allah u naxariisto ciyaartooydii ku dhimatay shilkaas wararka qaar ayaa waxay sheegeen in ay ku dhinteen 3 kamid ah ciyaartooyda heer koowaad kooxdaas oo lagu magacaabo JCCI Allah u naxariisto ciyaartooydaas ku dhimatay qaraxaas sidoo kale Ilaahay ha u boogadhayo intii ku dhaawacantay qaraxaas waxaa sidoo kale maanta oo Jimco ah ka bilowday magaalada Edmonton tournament lagu magacaabo Heritage Long Weekend Tournament ciyaarahaas oo ku wada ciyaari doonaan 6 kooxood oo ka kala yimid Vancouver BC Hamilton Ontario iyo Edmonton sidoo kale waxaa ka tacsiyay qaraxaas lala beegtay ciyaartooy heer koowaad ka ciyaara dalka Kismaayo ciyaartooydii ka soo qayb gashay tournamentiga iyo tababarayaashii qaar kamid ah ayagoo runtii la wadaagay murugada khaasatan ciyaaraha khaasatan ehelkii ay ka baxeen ciyaartooydii ku dhimatay meeshaas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد سهل قلبي waxaa taagan Kamaal Yare Cabdiraxmaan iyo Cabdi Qadar waxaan u tacsiyeynaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii inta Soomaali weyn ay ka dhimatay qaraxii maanta ka dhacay waa arin aad u naxdin badan waxaan leenahay sameeyay ma Allah naga wada siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun intii dhimatay Allah naxariisto inta dhacmatay insha Allah waxaan u rajaynaynaa guudka kufri inay si dhaqso ku soo kabsadaan haduu Ilaahay jira marabano waxaan leenahay dhammaan ehelada dhan sportska bahweynta dhan sameeyay ma Allah naga wada siiyo dhammaan anaga naga dhinteen aamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعبد الخير محمد كان سوجي مقالة كسمايو ومانت آفذة كدعضي مركب كواد وحان لي إنا لله وإنا إليه راجعون مركب لبارنا إلهي هون حريستو ديالك دان يردها ما أرتي فعنقها ميشا كوغيريو دي غاريغا قرح الله ديغي انتي ما أرتي كدعو عنتين إلهي هو بوغدايو وإلهي عافي انتي دمتين إلهي والدين تودي ريركودي سمري إيمان الله كسيو إلهينا ما ركتي حنا قبت عدوًا مال ونوجيرو يمال ونجيرو بورب ومهينو مركا إن شاء الله عصر اليرادة وحنا لا هي اسكتوا بناضة وحي خلدنا أركتين دي اسكقبت دول كينيجا اسكال مجال دي إنيجا اسكال ودن كينيجا اسكال وحي وانا أكسرنا دي عمو دي جرا وحلو قبتها هراء وسي صعدة وحي كليتنا دي إلهي أفوين دعايو هيدين كقبت أنت سنقصو جويا وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم مجال أنا عبد الرحمن أكسو جدا مجال إدمنتون عيار كسبورتس كعياره وأفبهذا أو سبورتس كإدمنتون لما أنا وكهض لايو مسافر كودي أنا وكهض لأنه لما أنا واحد وتعسيننا ومضي ما أنت كوجريو تي مجالة كسمايو يو أنت كودا عن تي إلهي نوع عزمات كسيو إهلدو يو أنا كل جنا لما إلهي سمر إيمان نجود السيو الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أمد الصومالية ملك استيجوكتو والسلامة وحن قار أهان ربا إن وقت تعسيه dhibaatadii maanta murugada lahayd oo aad xanuunka u badneed oo ka dhacday wadankeena khaasatan magaalada Kismaayo dhalinyaro yar oo Soomaaliya masaakiin ah oo kubad iska ciyaaraysa in dhibaato loo geysto oo lagu dhibaateeyo waxa way waa wax aad u dhibaataa wax aad maxaa la yiraahdaa dhibka aad Soomaaliya nooga haystay ka mid tahay marka waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo eheladii ay ka geeriyoodeen asxaabtoodii dhammaan ummadda Soomaaliyeed anoo ku hadlaaya magaca dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Edmonton degan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaaha u naxariisto السلام عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون أنا جوا عبد الوهاب وكم عليه أولو وكسر هذا إدمنتون وحن قاعد وقطع سينا يا دقرحي كدعي كسماية ما أنت الله ونحرست اللي يرد المتي أنت دعوا عنا الله وبوجنا إن شاء الله السلام عليكم مقعي وكيته مثل قرنا يا قرنايو وحنا قطع سينا مشاكل يرد وقطع عندك كسمايو خاصة دلنتي سبورتسكا oo lagu waxyeelay aad iyo aad ayaan u tacsiyeynaa arrinkaas waa arrin aad lagu xumaado waxyaalaha noocaas waxaan leenahay dadka sameeyay
inay ka foojignaadaan oo iska ilaaliyaan qaladka noocaas ah waayo wax baaba'aya waa dadkoodii waa dhalintoodii waa ummaddoodii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي باشي قرنك الصومالية وسوديلي maanta waxaa ka naxay ciyaartooyda oo Kismaayo ku dhimatay oo qaraxa Allah yarxamo inta dhimatay Allah u naxariiso qaraxi maanta ka dhacay Kismaayo inta dhaawacana Ilaahay caafiyo oo duceynayna insha Allah marka wax laga naxa waaye oo xasoo kaleento qaraxan Soomaaliya in la soo jaro waaye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون مقعيق عبد الشار أنا أوهد لي مقع سبورتس كدقمة إدمنتون وعن تعسيتي رانيا لو دريا الذي قرابتي كجوريو الذي ما أنت كجوريو تي كسمايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي عبد الرحمن سافمي يوسف waxaa tacsiina qaraxi oo bas ka dhacay intii dhinteen Allah naxariisto loo dareemin farxoshada howl adag waa abaabulkeeda runtii waa kugu amaanaya sidii degdega loo qabtay ciyaaraha oo tournamentiga imisa koox ka soo qayb gashay hadda waxa ka soo qabshay 6 kooxood oo saan noo sheegtay koox waxay ka timid Vancouver kooxna oo Ontario Hamilton Ontario yaa wada ciyaaray hadda waxa wada dheelay maanta jimcaha kulli buu furmay game-na waa dhamaaday game-kan hadda socdaa yaa wada ciyaaray game-ka hore game-ka waxa wada ciyaareen Shisha iyo Blueberries oo guushii raacday guush waxay raacday Blueberries oo afar year ku adkaa 5 year ku adkaatay sorry haddana waxa socdo Vancouver iyo FC inta ka socdo FC lacagno game-ka hadda wuxuu marayaa 1-1 game adag wali ma dhamaan game-kan dhamaan hadda 1-1 marayaa game kale adaga tumaro jiro bari ma semi final noqonaya mise ara kala jir doon bari waa still group stage ka labada group ay dheelayaan min 2 game ay dheelayaan tomorrow marka waxa laga soo qualify ga la sugayaa tomorrow waxa la semi final la aadaya labada kooxood oo soo baxdo insha Allah hadii la gaar axada game-ka dhamaan doona no tomorrow markii soo baxaan group stage ka dhamaado axada waxa la dheelayaa semi final waa gartay laba afar kooxood ka soo harta dheelayso okay ciyaaraha waxay soconayaan afar maalin ilaa Monday soconayaan afar maalin soconayaan maadaama ay tahay holiday heritage ka holiday Mondayda game-ka final wuxuu noqon doonaa Mondayda kick-off waa 7 o'clock ciyaaraha inta badan halkan ma lagu qaban doonaa mise meel kale lagu qaban doonaa waa we plan meel kale ku qabano qolostiga noo soo galway inta lagu wada qabanayo inta ognahay ciyaaraha halkan lagu qabanaya wixii dambe faarax dib loogu soo sheegi doona insha Allah isla joogna faarax waqtigaada oo ma taqaan runtii mashquulka ka qaadan oo kuma santa waraysigan siisay albaasho noo taagan ciyaartoy hore xulka qaranka aad ma astaasay tournamentiga oo soconaya 4 maalmood ayaa maalinta Isniinta waxa la filayaa inay dhacdo finalka Agosto 2021 waxaa barnaamijka idin soo jeedinaya anigoo ah Cabdinaasir Faarac Ciise dhinaca kaamarada iyo farsamada waa Rashiid Runsheeg waxaan idin leenahay nabadgelyo amaana Allah intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga